magaalada Burco ayaanu ka bilownay safarkayagii saacad kadib markii aanu tukanay salaadii duhurka. waxaanu ka sii qadaynay Cafe Hotel oo ku yaala waqooyiga magaalada Burco. kadibna waxaanu gaadhigii u jeedinay dhinaca bariga oo ay Caynabo naga xigto. magaalada ku xigta Burco marka aad dhinaca bariga uga baxdo waa Yirowe. waxay u jirtaa Burco 20 kilomitir. Yirowe waxay soo martay taariikh aan la ilaawi karin iyada oo noqotay horaantii sagaashaneeyadii dekada qalalan dry port. waxaa la isaga iman jiray bar iyo galbeedba wadanka oo dhan si looga iibsado alaabta laga soo dhoofiyo dibadda. maantana sidaad u jeedaan waxay ka mid tahay magaalooyinka yaryar ee u dhow Burco. halkani waa Toga Beer. waa togi oo qalalan. waxaan idin tusayaa muuqaalkan ka duwan ila daawada sanad ka hor mar aan duubay toga oo barwaaqo ah. markasta oo barwaaqo ah togu sidan ayuu u soo rogmadaa. waa muuqaal runtii cajiib ah. biyahana waxay u baahan yihiin in laga faa'iideysto oo la qabto si baahida bulshada wax looga taro. waxaanu u baydhnay oo shaah ka sii cabnay Qoryaale. Qoryaale kuma taalo laamiga. waa inaad ka degtaa laamiga 5 mirir oo aad u baydhaa dhinaca hawdka. sidaad aragtaan Qoryaale waa magaalo aad u kobocday oo ay ku yaalaan iskuulo badan. magaaladani waxay leedahay laami dhexmara. magaalooyin aad u fara badan ayaanu sii dhexmaray oo aanan halkan ku soo wada koobi karin oo ay ka mid yihiin Unuunley, Ina Dhakool, Ina Afmadoobe, Gaatama, Kirid iyo qaar kale oo fara badan. magaaladani waa Wadaamago. haddii eebbe igu simo oon seefto igu dhicin saraariyo nugaal bari ayaan samir u aadiye. haddii aan wax badan siday caashaqa sidiisaba ama kali saara sahal uma dhigay. ku soo dhawaada Caynabo. intaan magaalada gudaheeda gelin waxaan waraysi taariikhiya la yeeshay Maxamed Xasan Yuusuf oo ku sugnaa magaalada Caynabo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. halkaan joogna waa ceelkii Caynaba. geedkan aad arkaysaan dhinaciisa baa Ilaahay naxariistay wuxuu halkii Ingiriisku fadhiyi jiray. xagga waxaa isna ah ceelkii oo wali laga dhaansado. xagga ka sii dambaysana waxa weeye waa ceelkii la filtergareeyay dhawaan u horeysay Caynaba laga furay ahayd. magaaladii marka way balaaratay ma sha Allah tabarakallah. dhinac walba way balaaratay masaajidada oo bateen laakiin asalkii hore magaalo yar oo kooban bay iska ahayd oo aad dadku yar yihiin oo inta badan ceelkan baa loo iman jiro xoolo dhaqatada ku hayna xoolahaas ceelkan ka cabi jiray laakiin maanta waxay noqotay gobol bay noqotay maadaama history meeshu ay leedahay taariikh meeshu waa meel taariikh dheer leh oo taariikhdoodu waa aad iyo aad u fog tahay. Caynaba waa la garanayay ceelkeedaba. dhammaanteen waynu jecelnahay horumarka waddankeena. ma ogtihiin in Caynaba laga hirgeliyay biyo nadiif ah. biyahan oo caawiyay baahidii dadka degan Caynaba iyo agagaarkeeda. projectkan waxaa maalgeliyay UNDP, United Nations Development Program, iyagoo isticmaalaya waxa loo yaqaano solar powered water desalination.